السلام عليكم. cabsida ugu weyn ee dadka qaar ayaa ah inuu galo shil gaari amase uu ku waayo qof ku jira asxaabtiisa. sidaa darteed waxaa jira xaalado aan la hilmaami karin oo dadka gala xaaladaha quusta ay ka soo baxaan. maanta waxaa muuqaalkan kula wadaagi doonaa 4 nin oo ka mid ah dadka ugu nasiibka badan kuwaas oo kasoo kabtay shilal aad iyo aad u xun halayna waxay ku hamin jireen ama wax kasii fiican. haddii ay tahay markii ugu horreysay ee soo booqata channelkan fadlan rukuma muuqaalada channelka oo taawa calaamada subscribe-ta lana wadaag asxaabtaada mahadsanid. John Sacklin 30 sano ka hor John wuxuu ku noolaa nolol caadi ah waddanka Mareykanka oo uu korinayo wiilkiisa. dhibaatada kaliya ayaa ahayd caafimaadkiisa. waxaa dhacayay eeyo yaryar ayaa ka dhawaaqaya dhagihiisa looqyada qaarkood oo xasaasiyad ku kicinayay. xaaladahan John aad buu u xanuunsaday. maalmaha ka mid ah wuxuu go'aansaday inuu maro qaliin. nasiib darro qaliinkii wuxuu noqday mid guul dareysta oo sababay dhiigbax maskaxeed taasoo dhakhaatiirta ku qasbaysa inay ka saaraan qayb ka mid ah unugyada maskaxda. markii John ugu dambeyn uu soo toosay wuxuu noqday mid u bareeray dareenkiisa cusub inuu xitaa ka tanaasulo shaqadiisii hore. Sarkin shaqo qurux badan ayuu u qabtay dadweynaha waxaana jeclaadeen dadweynaha halka xitaa sheekadiisa uu u sheegay warbaahinta adduunka dhanna caan ayuu ka noqday. wixii markaas ka dambeeyay sawiradiisii ayaa lagu soo bandhigay meelo badan oo dunida laguna iibiyey $10. qof waliba oo isku daya inuu barto luqad qalaad wuu ogyahay inay u baahan tahay dadaal dheeri ah si aad ugu hadasho ugu yaraan heerka aasaasiga ah. 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 7 7 3 4 5 waxaa la sheegaa luqadaha Aasiya inay yihiin kuwo adag una baahan waqti badan iyo dadaal badan. tusaale ahaan waxaad ogtahay inay jiraan 50,000 oo xaraf oo Shiinees ah, laakiin ninkan ka soo jeeda Australia waqti uma khasaarin barashada lahjadda ugu caansan ee ku hadlaan Shiinuhu. Ben ayaa galay shil baabuur. kadib shilka wuxuu ku jiray koomo muddo 7 ah. markii uu soo toosay waxaa soo baxday luqadda kaliya uu ku hadli karo inay tahay luqadda Shiinaha, taasoo Ben uu qiray inuusan ka baranin luqadda Shiineeska xarfa yar moogiye. qaybta mas'uulka ah xifdinta luqadaha ayaa la rumaysan yahay inay tahay qaybta bidix ee maskaxda. sida muuqata qaybtaas maskaxda Ben waxaa saameeyay shilka. ugu dambeyntii wuxuu bilaabay inuu xasuusto luqadiisii hore ee Ingiriiska taasoo ka walwal qabay inuu lumiyay. waxaa la yaab noqotay inuu Ben uu bilaabay ku hadlida labada luqadood ee Ingiriiska iyo Shiineeska sida afkiisa hooyo oo kale. Ben hadda wuxuu ka shaqeeyaa dalka Shiinaha. Alison Selemones markii Alison oo ahaa wiil yar tiis iskoolka waxaa soo gaaray dhaawac halis ah oo ka soo gaaray madaxa. markii hore Alison wuxuu ilaaway nolosha wax akhriska, tirinta iyo qoridda. si kastaba ha ahaatee wuxuu helay karti kale oo uu u baahnaa. waxaa soo baxday in Alonso uu noqday mid si fiican u yaqaana samaynta taalooyinka iyo sanabyada. wuxuu markiisii ugu horreeyay ku guuleystay dhagax sida qaansiirka uu u sameeyey. kadib markii uu ka qalin jabiyey iskuulkiisii wuxuu go'aansaday inuu naftiisa u hibeeyo musawirada si xirfad leh, taas oo u keentay inuu yiraahdo waxaan gaaray heer aan horay aan loo arag. maantana wuxuu samayn karaa muuqaalka xayawaan kasta oo ku nool dunidan. dhawaa 8 milyan oo hilaa ayaa ka dhaca dhulka maalin walba. walow Ilaahay ka ilaaliyo noolaha oo ay badanaa ku dhacdo buuraha iyo meelaha keymaha ah, ninkan kama uusan kabsanin kaliya dhibaatada hilaacaad ee wuxuu noqday musician caan ah kadib dhacdadaas. 25 sano ka hor Anthony wuxuu wacay telefoon si lama filaan ah ayaa waxaa ku soo garaacay hilaac. isla markiiba meesha ayuu ku miyir beelay oo uu dhacay. kadib soo kabsashadiisii waxaa dhacay mar uu show qabanayay. Anthony wuxuu isku arkay iftiin ka dareemay jirkiisa. nasiib wanaag dhakhaatiirtu way ku guuleysteen badbaadintiisa, laakiin sheekada halkaas kuma dhammaanayso. shilkaas kadib Tony noloshiisa oo dhan uu xiisayn jiray inuu barto muusiga. waxay kadib wuxuu ku riyooday isagoo ka qayb galay masraxa muusiga. dabcan ugu dambeyn wuu bartay dhammaan qoraalladii muusiga iyo qiyaanooyinka aragtida muusiga. maanta wuxuu samaystay koox heesaha ah. muuqaalkeeni intaas ayuu noogu egyahay. channelka aad daawanaysan waa Burqad Channel. soo jeedaha barnaamijkuna waa anigoo ah Cabdinaasir Cilmi Cabdi.
intaan ku kulmi doono muuqaalkan kan xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.